صالحة أتسميسو لو قدبيو ما دام الله لو قدبنا يني أي واجب تهي إن أوحى أذيك كان سوفوليا أد إساقا أقبرح يشو أد أخالص يشو وإله سبحانه وتعالى إساقا كلي أد لقى صدو إمام ابن قيم وحا أورنيا في حاشية سنن أبي داود وحا أويري النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحا أويري قفك بني آدم كأ وحا لو قدبيا إله سبحانه وتعالى أعماشي سد حجر ماذا وحا يدعى مالنتي midna waxay dhacdaa asbuuci midna waxay dhacdaa bishii ama sanadkii hal mar bay dhacdaa haddaba keebaa maalintii dhaca imaamu muslim waxa uu soo saaray min xadiisi abi muusa alashcari radia allahu tacala canhu ardaah in nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yanaam walaa yanbagii lahu an yanaam yakhfidu alqisطa wayarfacuh yurfacu ilayhi camalu lleyli qabla camali الnahaar wa camalu الnahaari qabla camali lleyl إله سبحانه وتعالى وحا لو قدبيا عمل كاغا مالين كستا هبينكي انت ان لقارن ايا عمل كمالين تلو قدبيا وحديث مركا ان سو كوبو إله سبحانه وتعالى ما سيحذو إله وما هبونا إنه سيحذو إله سبحانه وتعالى صفاتك بني آدم كمالها صفين إساقا خاصة أيو ليهي ليس كمثله شيء عد أساقا لمد أهنا مجد الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير هذا إله سبحانه وتعالى عمل والبود مالين كستا أسميسو waxaa loo gudbiyaa intaysan habeen noqonin kaad habeenkii samaysana waxaa loo gudbiyaa maalintii inta aysan yani habeen noqon ka habeenkiina maalintii baa loo gudbiyaa ka maalintii habeenka loo gudbiyaa yani intaan yani 24 hours kii laba jeer baa loo gudbiyaa camal walba samayso isla sidoo kale nabiga waxa lagu yiri calayhi salaatu inuu yiri yatacaaqabuuna fi sahihayn yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bil-layl wa malaa'ikatun bin-nahar fayajtami'una fi salati as-subhi wal-'asr thumma ya'ruju alladhina batu fiikum فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم يصلون يعني ملائكة حاجرتا يعني اسباب بدشا حلقة قلبكي حلقة عصركي حلقة الصبح دي كوبي صلاة الصبح يمد عصركي بين نقونيان كوبي عصركي يمد صلاة الصبح بين نقونيان ملائكتاس مركا نقونيان حفظداس مركا أي نقونيان أيو إلهي وحا ويدينيا إسوك أقال بدن أدون كي مركا قلبتي أتكتين أما أساك صلاة الفجر أتكتين معناها سدوءها مركا سوحي لي يا الله waxaan u tagnay asagoo tukanaya asagoo khayr ku dhex jira kuwii ka soo rawaxayna galabkii waxay leeyihiin Allah waxaanu ka nimid asagoo khayr iyo wanaag ku dhex jira waa maalintii reportka laga gudbiyay ayaa caynkaasa asbuuciina isla saxiixaynka waxaa ku soo arooray nabiga calayhi salaatu wasalaam min xadiis abi hurayrah radiyallahu ta'ala anhu ardaah a'maasha bani aadanka waxa ilaahay loo bandhigaa asbuuc kasta laba jeer maalinta isniinta iyo maalinta khamiista ayaa ilaahay loo bandhigaa camal kasta oo samayso marka asbuuci laga hadlay waa weekly markaasaa ilaah subxaanahu watacaala fayakfiru likulli cabdin mu'min ilaahay wuxuu u dembi dhaafaa addoon kasta oo mu'min ayuu ilahay u dembi dhaafaa ilaa laba addoon ama laba qof oo dhexdooda shaxnaa cuqdad iyo kala ma taqaanay xanaf iyo ay ka dhaxaysay ma ahane kubaasna malaa'igtu waxay leeyihiin waxaa leeyahay u kaadiya ilaa intay ka heshiinayaan yani ilaa intay dib uga soo noqonayaan haddaba asbuuc kasta ilaahay waa loo gudbiyaa camalkaaga dembi dhaafkaana waxaa kaa xajibi karaya oo kaa celin karaya inaad cuqdad low tahay ama uusan qalbigaadu saafi ahayn ama inaad dadka la noolaata ay kugu adag tahay taas ayaa in lagu dembi dhaaf kaa hor istaagi karta ugu dambayn sanadkii hal mar haddaba allahu akbar sanadkii hal mar baa haddana sidoo kale bishan aynu ku jirno ee bisha shacbaana sida uu wariyey yani imaamu nisaa'i sida uu wariyey sunankiisa markii usaamata ibnu zayd uu nebiga weydiiyey kuri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow bilaha ma arkin bil aad ka soon badan tahay bishan markuu weydiiyey su'aal caynkaasa ayaa nebigu wuxuu ku jawaabay usaamow bishan aynu ku dhex jirnay shacbaan ah daalika shahrun yakfulu annaasu canh bishani waa bil dadka badankoodu ay khaflad kaga jiraan waa bayna rajab wa ramadaan bishaas markuu nebigu sii qeexay waxa uu yidhi waa bisha u dhaxaysa ramadaanka iyo rajabka u dhaxaysa waana bisha shacbaan bishaas dad badan way ka seexdeen bishan dad badan way ka mashquulsan yihiin bishan dad badan agtooda qiimo kama laha bishan dad badan ma jecla daalika shahrun yakfulu annaasu canh tani waa bil dadka badankoodu ay khaflad kaga jirto weeyaan markaasaa nebigu waxa uu sii raaciyey anigu waxaan jeclahay in ilaah subxaanahu watacaala loo gudbiyo acmaashayda aniga oo sooman idan nebigu bishan waa uu soomi jiray
maadaama acmaasha ilaahay loo rafciyo loo gudbiyo acmaashaas ilaahay loo gudbinayo nebigu waxaa uu jeclaa in maalinta iyada ama bisha iyada ah loo gudbiyo ilaahay subxaanahu watacaala isagoo oo sooman isagoo cibaado ku dhex jira isagoo oo allahu akbar kan maanta adiga imise ayay kuu wanaagsan tahay inaad soonto inaad xumaanta ka soonto inaad fisqiga ka soonto inaad heesaha ka soonto inaad xanta ka soonto inaad qabyaaladda ka soonto in aad caatifadda iyo weliba midabta koorka iyo cunsuriyadda iyo mataqaan aad ka soonto imise ayaa loo baahan yahay oo qof keliyana biyuur ah qurux badan qalbigiisu saafi yahay acmaashiisuna ilaahay uu jecel yahay aad noqoto imise ayaad maanta u baahan tahay walaalkay qiimaha badan imise ayaad u baahan tahay haddaba bishan ka faa'iidayso inaysan ku soo marin ayaa laga yaaba bisha dambe imise qof ayaa shacbaankii hore inala joogay laakiin shacbaanka maanta ah aan nala joogin imise qof ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajiyey laakiin maanta uusan waafajin u diyaargarow bisha ramadaan u diyaargarow bishan ugu diyaargarow in aad soonto haddaad bishan soonto ood ku dadaasho ogow bisha ramadaanna ilaahay waa ku waafajinaya subxaanahu watacaala maxaa yeele tan baad qiimaysay tan baad ku tareen garaysay tan baad ku practice garaysay tan baad ku dadaashay tan baad ilaahay ugu tadarrucday ta kale ilaahay subxana wataala si qurux badan buu ku waafajinayaa ka faa'iidayso walaalaha kana gaarsiy insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu